ka badan 150 dhalinyaro ah oo ahaa kuwii ku jiray carbiska shaqo qaran ee xarunta ciidanka darar weyne ayaa maanta soo gaadhay magaaladani Boorame ee xarunta gobolka Awdal waxa si diiran loogu soo dhaweeyay deegaanka Gorayo Cawl ee bariga magaaladani Boorama taasoo ay kaga hortageen taliyaha qaybta booliiska gobolka ku xigeenka barasaabka gobolka kusimaha meeyarka magaaladani Boorama qaar ka tirsan xildhibaanada aqalka golaha deegaanka sidoo kale iyaguna waxaan dhankooga ka maqnayn bulshada qaybaheega kala duwan oo halkaasi laga soo jeediyay waxa halkaasi ka hadlay barasaab ku xigeenka gobolka Awdal taliyaha qaybta booliiska meeyar xigeenka degmada Boorama iyo waliba xubno ka tirsan xildhibaanada aqalka deegaanka Boorama aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa madaxweynaha hindisahan keenay isla markaantana isla muddadiiba haddana ka dhabeeyey insha Allah inaguna waxaan rajaynaynaa inaan ka faa'iidaysano idinkana waxaan idinku ducaynaynaa tababarka aad soo qaadateen inuu idin anfaco waddanka iyo dadkana aad ku anfacdaan haddii Ilaahay idmo goor xun baynu soconnaa oo waxa weeye qorax baa idin haysa idinkoo sooman tababar ka soo baxay aad iyo aad baan idinku hambalyeynaa waddankuna uu idinku farxay sawirka quruxda badan leh halka ka muujisay aad iyo aad baan idin soo dhaweynaynaa annagoo ku faraxsan shaqo qaran ilaahayna waxaan ka baryaynaa wixii aad soo barateen inaad noqotaan kuwa qaranka iyo ummadda iyo bulshadaba anfaca iyo guryaha ka timaadeenba kuwa anfaca marka labaad waxaan halkan mahad uga sugayaa madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo isagoo gartay barnaamijkii uu soo abuuray oo maskaxdiisa ka soo hindisay inuu maanta aan soo qalajibin barnaamijkaas oo ahaa in qabiil la dhaafo qarannimo iyo qalin wax lagu raadiyo taasna madaxweynaha lagu mahadcelin qarankanada sidiisii hore iyo si ka badan baan ugu shaqeynaa waxa weeyaan qabiilnimo kuma shaqeynaa qalin iyo qarannimo ku shaqeynaa waayo lixda gobol baan iska nimidnay maanta isma naqaan lixda gobol waxa naga dhaxeeyo waa qalin iyo qarannimo oo ku faraxsanahay waan idin soo dhaweynaynaa waan ka cudur daaranaynaa waana ka xunnahay in maalintii la idin sii galbin waayo xaq baad u lahaydeen habase ahaatee barasaabkii gobolku uu ka baxsaday waa uu ka maqan yahay ilaa hadda cidna maalintii ma eriyan cid eryatay oo gobolka oo maamulka ka yahay u sheegatay ma jirin saraakiisha la laayaana ugu xigay waan u yeedhay baa maalintoon Hargeysa ugu tagay inaan gobolka ku soo celiyo habase ahaatee uu ka baxsaday kuna soo noqon maayo soo dhaweynaa dhalinyartii shaqo qaran ee soo dhameysatay kooraskii gacmna oo ahaa runtii mid muhiim ah oo wax ku oola runtii aad baan ugu faraxsanahay aad iyo aadna waan soo dhaweynayaa waxaan u mahadcelinayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynaha ku xigeenka iyo xukuumaddiisa run ahaantii inamada shaqo qaran oo ah inamadii ugu horeeyay ee hawsha galay kuna soo dhawaada gobolkiinii Awdal ee markii hore ka tagteen run ahaantii isku soo wada duub oo tababarkan ayaa hami iyo dhiirigelin u noqonaya ardayda soo dhameysatay barnaamijka carbiska shaqo qaran Jaamac Xuseen Jaamac Dude Somali Cable TV gobolada Gabiley Awdal Salal